shukaansiga ama haasabaha aan loo meeldayin wuxuu kuu keenaa dhibaato halkii aad faa'iido ka gaari lahayd. haddaba muuqaalkan waxaan idinkugu soo gudbinaynaa wiil isla shukaansaday laba gabdhood oo saaxiibo ah. maxaa ka raacay? wiil lagu magacaabo cumar ayaa gabar bartay, waxayna ahayd markii ugu horraysay oo ay si kedis ah meel isaga soo horbaxaan. hadallo ayaa laisdhaafsaday, kadibna sidaas ayay isku barteen oo halkaas ayuu shukaansigooda ku bilowday. markii ugu horraysay oo cumar gabadha indhaha uu ku dhuftaba wuxuu ku yidhi waa nuuraysaa. gabadhii oo qosol yar ku daraysa ayaa ugu jawaabtay mahadsanid. cumar ayaa ugu celiyey aragtidaada waan ka faa'iiday. markaas bay gabadhii ayaduna ku tiri oo maxay? aragtidaadii horeba abbaayo indhahaaga iyo dhoolacaddeyntaada waan ka helay ma isbaran karnaa? gabadhii baa ku tiri haye walaal soo dhowow. kadibna magacyada ayay kala qaateen. gabadha shukri ayaa la odhan jiray. sidaas ayayna ku saaxiibeen oo taleefanadii nambarada ay ku kala qaateen. kulmo badan ayaa dhacay kadib ilaa xidhiirkooda uu adkaaday. nasiib xumo cumar ma uusan joojin barashada gabdhaha iyo shukaansiga. shukrina ha kugu filnaato ma uusan odhan. gabar kale oo ayadana ubax lagu magacaabo ayuu la kulmay oo shukri ee saaxiibteed ah. sidii shukri uu u soo xerogeliyey iyo ereyadii macaanaa ayuu u isticmaalay ubaxna waa uu soo xerogeliyey. ma uusan ogeyn isaga in ubax iyo shukri ay saaxiibo yihiin wuxuu islahaa midba meesheeda ku miis. horaan u maqli jiray haween kun bay koodisaa, kowna waa kala baxdaa. laakiin cumar waxaan u malaynayaa maahmaadii in uu beddelay. rag kun buu koodiyaa, kowna waa kala baxa uu ka dhigay. maxaa ka raacay cumar? allow dumar yaysan noo heshin. maalin maalmaha ka mida labadan gabdhood oo saaxiibada ah oo ka sheekaysanaya midba midka ay saaxiibka la tahay ilaa isma oga, laba wiil bay moodaan in ay la kala socdaan, ayaa ubax ku tiri shukri walaalay bal itus wiilka aad saaxiibka la tahay sawirkiisa, ayadoo ka shakisan sida dabeecaddiisa iyo muuqaalkiisa ay oga sheekaynayso. in labadooda ninka ka dhexeeya uu isku mid yahay ama ay isku dabeecad yihiin. ilaan waaba hal nin labada gabdhood ninka waalay oo shukaansada. kadib haddii ay sawirka fiiriyeenba waa isku hal nin. tolo ayaa ku caddaatay labadii gabdhood. kadib way shireen, waxayna go'aansadeen in ay ka cadgoostaan. shukri ayaa ku tiri aniga ayaa ballaminayo gurigayga. kadibna guriga ayay ku ballamisay. tii kalena qolalka kale ee guriga ayaa lagu qariyey. markuu xoogaa sheekeeyey ayay ku tiri shukri soo qabayso cumar. aad ayuu cumar u farxay. macawiis iyo shukumaan bay siisay. cumar wuxuu isleeyahay maanta waxay sidaan kugu samaynaysaa shukri jabbiyon miyaa jira. isagoo isdiyaarinayo markuu suuliga uu ka soo baxay isagoo feero qaawan ayay labadii gabdhood moobeel la soo baxeen. waxayna bilaabeen inay sawiraan ayagoo ugu hanjabaya in sawiradiisa ay qaybin doonaan oo ceebayn doonaan si uu u waayo gabar dambe oo shukaansado. cumarna isagoo hungoobay ayuu gurigii ka cararay. wax uu ku hadlana waa uu garan waayey. sheekadiina intaas ayay inoogu dhammaatay. waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. fadlan haddii aad ka heshay sheergarey si ay dad kale uga faa'iidaystaan leeg inoo saar. sabskraibeka naga ilmaamin. mahadsanid.